xajaaj waxaa loo ogolaaday ciidanka dhanka kale. khilaafada Sumeeriyiinta ayaa ku guuleystay inay qabsadaan magaalada Kuufa kadib markii ay dileen hogaamiyihii Calaawiyiinta Mukhtaar Thaqafi, waxaana hogaaminayay ciidanka Muscab ibn Zubayr. Muscab ayaa fariin sida u diray Cabdullaahi ibn Zubayr khaliifkii Sumeeriyiinta isagoo u sheegay inay dileen Mukhtaar Thaqafi. dhanka kale qasriga Umayyadeed waxaa ka socday shir lagaga hadlayo lagana walaacayo fiditaankii Sumeeriyiinta. sidaas ay tahay xajaaj ayaa waxaa loo dhiibay diiwaanka ciidanka iyo nidaamintooda maadaama oo uu ahaa macallin quraan. xajaaj ayaa soo tafatiray una dejiyay qaab cusub diiwaankii ciidanka, waxaana aad ula cajabay ibnu Sambac oo ahaa taliyaha ciidanka, waxaana uu u geeyay khaliifkii Umayyadeed Cabdimaalik. isna aad ayuu la cajabay qaabkan cusub ee loo nidaamiyay diiwaanka ciidanka, waxaana uu codsaday in loogu yeedho qofkii qoray, waxaana loogu yeedhay xajaaj. amiirka ayaa yidhi, maadi ayaa shaqadan qabtay? xajaaj: haa, aniga ayaa shaqadan qabtay. xajaaj ayaa sii waday hadalkiisii, waxaana uu ammaan kula duldhacay amiirka iyo dowladdaba. Cabdimaalik: waan kaaga mahadcelinayaa hawshan fiican ee aad qabatay. Cabdimaalik: maxaad isku sifaynaysaa yaa xajaaj? xajaaj ayaa ku jawaabay, waxaan ahay nin madax adag, macangag ah, xaasid ah iyo cuqdadooleba. Cabdimaalik ayaa ku jawaabay, kuwani waa sifooyinka qofkii aan doonayay. maalinkii dambe ayaa xajaaj waxa uu la kulmay oo uu tegay taliyihii ciidanka, waxaana uu ku yidhi, waryaa ibnu Sambac. ibnu Sambac oo ahaa taliyaha ciidanka aad buu uga xanaaqay hadalkaas, waxaana uu dhahay, iigu yeedh taliye. xajaaj ayaa dhahay, sidee kuugu yeedhaa taliye inagoo isku darajo ah? ibnu Sambac ayaa dhahay, maxaad doonaysaa? waayahay. xajaaj ayaa dhahay, maxay ciidanku halkan ka qabanayaan iyadoo dowladda hareeraheeda ay dagaalo ka socdaan kuna soo wajahan yihiin khilaafada Umayyadeed? ibnu Sambac ayaa ku jawaabay, taasi waa arrin u yaal khaliifka Umayyadeed waa Cabdimaalik ibn Marwaane. xajaaj ayaa ku goodiyey inuu damin doono fitanka ka soconaya dowladda hareeraheeda. intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadeena labaad. daawade la soco xalqada xigta, sidoo kalena nagu taageer subscribe-ta iyo like-ta siduu dad badan u gaadho. mahadsanid.